hay-adda suxufiyiinta aan xuduudda lahayn ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano RSF ayaa sheegtay in caalamka sanadkan sii dhammaanaya ee 2019 lagu dilay 49 wariye, taasoo ka dhigaysa heerkii ugu dhimashada hooseysay 16 sano ee la soo dhaafay. Warbixintan ay soo saartay hay-adda RSF ayaa lagu sheegay in sanadkan 2019 uu kordhay xariga wariyayaasha lagula kaco, iyadoo xabsiga la dhigay tiro gaaraysa ilaa 389 wariyayaal ah, taasoo ka dhigan in 12% xariga wariyayaasha uu sare u kacay. Wariyayaashan 49 ah ee la dilay sanadkan waxay dhinteen iyagoo warar ka tabinaya dalalka ay colaadaha ka aloolsan yihiin sida Syria, Yemen iyo Afghanistan. Dhinaca kale, hay-adda RSF ayaa xustay in 50 wariye la afduubay sanadkan 2019 ee sii dhammaanaya, waxaana lagu kala qafaashay dalalka Syria, Yemen, Iraq iyo Ukraine. Mana jiraan ilaa iyo hadda wax wariyayaal ah oo la sii daayay. Sida ku xusan warbixin sanadeedkan ay soo saartay hay-addan RSF, ilaa 80 wariye ayaa la dilayay celcelis ahaan sanad waliba 20 sano ee la soo dhaafay. 10 ka mid ah wariyayaashan la dilay sanadkan sii dhammaanaya ee 2019 waxay ku dhinteen dalka Mexico, iyadoo guud ahaan Latin America ay ku dhinteen 14 wariyayaal ah sanadkan. Sidoo kale, wariyayaasha la xiray sanadkan sii dhammaanaya ee 2019 oo ku dhow ilaa 400, intooda badan waxaa lagu xiray dalalka Masar, Sacuudi Carabiya iyo China, oo saddexdan dalba ay ka mid yihiin kuwa ugu daran caalamka ee ay ka dhacaan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha.